Assalaamu calaykum. Maanta videogeena wuxuu ku saabsan yahay haddii af Jarmal lagugu weydiiyo saacadu intay tahay sidaad ugu jawaabi lahayd. Marka af Jarmal lagugu weydiiyo saacada intay tahay, 3 kelmadood ayaad isticmaali, waa nach iyo vor iyo uhr. Waxayna u dhaxeeyaan saacada iyo midhidhada. Uhrna way ugu dambaysaa. Markaad sheegaysid saacadoo buuxdo waxaad odhani 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, so weiter. Laakiin inaad tidhaahdid 1 Uhr waa qalad. Kelmadda nach waxaa la isticmaalaa inta midhidh ay dhaaftay saacadu. Marka saacada aad sheegayso tusaale, waxaad odhan 2 nach 10. Midhidhkii baad halka hore soo marin, kadib nach baad odhani, markaasaad saacadii sheegaysaa. Es ist 10 Uhr 2. Saasay u qoran tahay, laakiin marka aad ku dhawaaqayso waxaad odhani 2 nach 10 Uhr. Saacada marka ay dhaafto 3 midhidh ama 4 midhidh, waxaad odhani kurz nach 10 oo u dhiganta 10kii oo dhowr midhidh dhaaftay. Markay saacadu rubuc tahay, waxaad odhani viertel nach 10. Okay. Markay imato saacadu badh, waxaad odhani halb 11. Waxaad sheegi saacadii soo socotay magaceedii. Saacada marka ay badh tahay, wixii ka dambeeya badh waxaad isticmaali doonaa vor iyo magaca saacada soo socota magaceeda. Kelmadda vor waxaa loo isticmaalaa inta midhidh ee ka dhiman saacada soo socota. Tusaale, 10 koob iyo 30 waxaad odhani 29 vor 11. Markay tahay saacadu 10:45, waxaa ka dhinaanaya rubuc saacadii dambe. Markaas waxaad odhan viertel vor 11. Sidoo kale 10:55 markay tahay, waxaa ka dhinaanaya 5 daqiiqo. 10:55 sidoo kale waxaad odhani 5 vor 11 ama kurz vor 11. Comment-ka waxaad noogu soo qortiin hal aufgabe oo ah halb 8, viertel vor 9 iyo kurz vor 12. Mahadsanid. Videogan haddaad ka faa'iidaysatay gefällt mir ama like dheh. Kuwa cusub saad ula socotidna abonniran dheh.